What are you willing to sacrifice for success? Su'aal horta aan ku weydiiyo. Nin walba guusha uu jecel yahay. oo qof walba muslina nolosha adduunka wuxuu jecel yahay nolosha ugu wanaagsan inuu ku noolaado aakhirana inuu jannada galo dadaalka markaa waa la isla wada garanay horta taa ka hadli mayno dadaalka nin walba uu garanaya wixii laga doonayay laakiin waxaa mudan in la isweydiiyo maxaa laga tanaasuli karaa maxaa laga tanaasuli loo baahan in laga tanaasulo waayo waxaad arkaysaa dad badan oo tusaale oo kale qof wuxuu leeyahay waxaan doonayaa inaan maxaa la dhahaa waxbarasho galo ama waxaan doonayaa ganacsi inaan samaysto ama waxaan doonayaa inaan six pack yeesho kasoo qaadba six pack gym inuu galo haddana waxaad arkaysaa qofkii six pack doonayay keegii iyo busudkii iyo sharaabkii macmacaankii deyn maayo dee suuq ku yeelan doona qofna wuxuu doonaya wuxuu leeyahay business weyn baan samaysanaya ama shaqo baan abuuraya hurdadiina wuxuu ku raagay ilaa 10 ilaa 11 ama ilaa door ku seexanaya dad doona qof baa kornay waxbarashaan galaya habeenkii oo dhan film buu fadhiyaa marka waxa weeyaan waxaan anigu ogaaday waxyaalo badan horta dadaal way ku xireen laakiin qaybta kale muhiimsan ee mar walba laga tago waxa weeyaan waxyaalo laga tanaasulay ama sacrifice lagu sameeyay su'aalaha daan ku irasiyo maalmo dhaweyd laba ciyaal ay jooga alxamdulillah mid baa iga xanuunsaday waan dhakhtarka geeyay marka shaqadii waan ka yara maqnaa maalin iyo badh waxaan dareemay marka waqtigan isaga la qaadanayay inaan maalmahanba waqti badan la qaado oo aniga qalbigayga taabta aniga xaaskayga oo ciyaalku inaan waqti badan la qaadano maalin walba shaqadan ku jira subaxsaan soo galo 9kii habeenimo ka baxaa 10kan guriga gaara marka wax weeyaan maxaad ka tanaasulaysaa waqtigan ciyaalkayga la qaadanayo sababtaan sacrifice ugu sameeyo waxa weeyaan hadhow wixii bedelka kale aan ka doonayo mustaqbalka inaan u sii diyaariyo marka imika waqtiga ka sii go saan hadhow wixii aan doonayo aan u gaareyshaan laakiin haddii aan diyaar u hayn sacrifice noocaas oo kale waana xanuun sacrifice kuma aha wax yar oo fudud qofka keega aad u jecel ama macaanka aad u jecel ama hurdada aad u jecel si uu daayo waxa qof balwad lagu yiri joojiyo hawsha ma yara sheekh almis yaxya ayaa si fiican qasayr oo kooban ka sheekay wuxuu yiri naftaada mar walba khilaaf bay ku jirtaa khilaafkaasi waxa weeyaan marka shirki ama abuurkii ilaahay uu abuuray shirka aha iyo ruuxii ayaa mar walba dagaal ku jira shirki marka wuxuu ka sameeyay ciidda marka wuxuu jecelay mar walba inuu ku dhawaado shirki marka wuxuu jecelay inuu iska jiifsado iska farfadhiyo inaanu dhaqaaq fara badan sameeyo inuu iska nasto ruuxina maxaa laga sameeyay samawaadka laga keenay sama marka samawaadka wixii laga keenay isaga wuxuu jecelay inuu darajo sare gaaro oo madax noqdo oo la dhaho meeshu soo galo badal al heblaya soo galo u banaya markuu soo galo kursiga loo qaco marka qofna wuxuu doonayaa xagga inuu gaaro qofna xagga inuu marka diinteena waxayna baraysaa dhexdhexaad inta dhexdhexaadka fiican waa xagga sare hadaad mar walba ruuxa naftaad hawada raacdina kibir baa ku abuurmaya taasna waa xanuun inaad noqotid qof iska fadhiyo iska jiifo caajisada taasna waa xanuun marka labadaba lama baahna marka su'aashan ku weydiinay waxa weeyaan wax badan baad doonaysa maxaa diyaar u tahay inaad ka tanaasul ma hurda ayaa kugu badan ma film baa kugu badan ma sheeka kugu badan oo waxyaalahan ku hortaagan guushaada weeyaan dadka qaar baad arkaysaa casarkii bartay fariistaan koobka shaaha u fariistaan 9kii barka habeenimo 9ka habeenimo ka kacayaan bal qofka isweydii 5 saacadood uu bartaa fadhiyo oo dhowr sano saas ku waday maalin walba anu intaan horta halgeysa joogay alxamdulillah 6 sano halgeysa joogay waxyaalahan markii aan ingiriiska joogay ka bartay waxa weeyaan asxaabtu waqti lumis bay waayeen halgeysa markaan imid ogaan baan asxaab u sameeyay imika meelo badan hada taqaanid meelaha meherada ama dadka garanaya ama hoteelada ay garanayaan mar walba kaliya baan imaad hadaan wax ka cunaya ma ka shaahinaya kaliya baan ka cunaya wax ka shaahinaya iska taga hal maalin qof aanu isgaranayno kuma oran heblow kaale aan shaahin 6 sano abadan waayo waxaan ogahay hadafkan leeyahay iga hortaagan marka we have to sacrifice kaas waa muhiim marka waa inaad adigu ogaataa sacrifice-ka ku sugaya waa inaad xisaabin kartaa marka taa insha Allah ku dadaal kana fikir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته